Asalaamu calaykum, soo dhawaada. Maanta waxaan sameynaynaa cake oo aad u macaan badan, aadna u fudud. Marka intaana loo baahan yahay daawasho wacan. Recipe-gan waxaad u baahan tahay hal bakeeri oo sonkor, hal bakeeri oo bur ah, hal bakeeri oo yogurt ah, hal bakeeri oo semolina, hal bakeeri oo saliid, nus bakeeri oo qumbe, baking powder oo 15 gram ah, iyo vanilla sugar, iyo 3 xab ukun. maadaama wax walba ay hal bakeeri tahay, kan ugu weyn aan isticmaalayaa waa hal bakeeri 3 marka loo qaybiyay, marka wax walba kan 3 mar aan isticmaalaa. haddaad rabtidna bakeeriyaana isticmaali kartaa, waa iska caadi, waa isla meeshii. marka wax walba hadda waa isku ridaya. markaad isku shiidaysid, waxaa isku shiidaysaa 3dan sonkorta vanilla sugarka, sonkorta caadiga ee ukunta, ilaa ay cadaan ka noqoto ukunta oo bubbles ay yeelato. marka sidaad aragtiin cadaan u noqday, si fiican isku galay. marka waxaad aad samaysid, waxaad ku ridaysaa hal bakeeri oo saliid ah. kadib wax in aad u yaraa u daynaysaa, kadib inta kale aad ku ridaysaa. marka hadda waa iskaleen. marka kan waxaad ka ridaysaa half bakeeri. waxaa ku xigo yogurtka oo hal bakeeri ka ridaysid.
بكتيريا وسالمونيلا. هالبكتيريا وبر. iyo hal bac oo baking powder ah. markaad qastay waxaad soo qoynaysaa kan aad rabtid inaad foornada ku gelisid. ani waxaan mariyaa subag, haddaad rabtidna saliidaa marin kartaa. kadib waad ku ridaysaa. markaad foornada gelinaynaa waxaad ku gelinaysaa 180 degrees 20 ilaa 25 daqiiqo. cake intuu foornada ku jira waxaan si sameynaa wax kor lagu shubi lahaa. waxaad isticmaalaysaa sonkor, liin dhanaan saad u jarjartay iyo biyo. marka sonkorta waxaad ka baahan tahay nus koob, biyana nus koob, 3 xabo oo jarjartay aad dhex gelinaysaa hadhow. intaan dabkaad isku saaraysaa ilaa ay karsanto. halkan waa isku walaaqaya dabka. marka haddaad rabtid waxaad isticmaali kartaa peach sham. aad dabka saaraysaa oo biyo ka dhigaysaa, kadib keega ku kor saaraysaa. labadaba waad samayn kartaa.
hadda waxaan kusii shubanaa baaquli. Keega waa kana sidaan u ekaaday 25 daqiiqo kaluu foornada ku jiray. Waa kan waxay ku shubi lahayn farkeetana waan soo qabsaday. Waxaan ku dooraynaa keega siday kaas si fiican hadda u gasho sonkorta. Waa mahadsantihiin. Waa inoo fiidiyowga dambe insha Allah.